برلمان كواي مدحوينها ما برلمان كواي ديبوتاتياش يا ددوينه بقول قفودي معي كنت يا سلام كي ادور شد كوبان دعت كنت يا فرت شن سنه واحد برلمان شن سنه بجراي مدحوينه تدرس سنه هاي وكدبي برلمان هو كدبي هاي مدحوينه لا دعمي هذا مدحوينه برلمان بس العان هذا وقت يدعان موته بالله لك اسكو وقت دعمين مدحوينه تدرس سنه بركي برلمان كبركو ان مدحوينه هروه سي برلمان كلو سمي دولتي او سي دولتي سي جرتو لكن هذا برلمان كي مدحوينه وزيري كله هو بايات هدي سيد فرماجه دي سكدر هاي موغي لكن هذه شرعيته شريعه بالله حوالي لمده هيئات من انه جرى صح هذا هيئات من انه جوجو فراغ دستوري من اجل فراغ دستوري من اجل الدوله اصلا وحي ودنا هل مره دغاي وكو وحياب بدن وهذا قرمون اللي بدل ان جعل هاي هدي ريغا سادي اوغلاطان وا قدر كرا waxa waaye waxyaabo badan oo qaab daran bilmasal hadda duqa magaalada iyo sindikaha ee gobernatoraha iyo sindikaha hawlana isku ah maxamed saad barra ka dhigay ka hor ma jir ma kana sheeg waa gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada ha gudoomiyaha gobolka iyo duqa magaalada laba nin ay ahaayeen weligood yaallood ka soo bilow 54 ilaa 69 inta ka dhaxayda laba nin ay kala ahaayeen shaqo isku ma lahayn duqa magaalada waa la dooro jiray gudoomiyaha gobolkana waa la magacaabi jiray gudoomiyaha gobolka waa la magacaabaa wasiirka arrimaha gudaha hoos tagay yaa magacaabaya madaxweynaha wasiirka arrimaha hoos tagay hatta waxa suurtagal inuu asagu magacaabay barkii madaxweynaha inta weydiisto oo asagu magacaabay suurtood halka duqa magaalada dadweynaha soo dooray golayaal deegaan ma jiro markaas ya golayaal deegaan ma jiro odayaasha deegaanka lagu sheegay waa consilio municipal niman jira ayagana doorashadaasi guda 25 nimay ahaayeen municipality joogeen 25 nimay ahaayeen odayaasha deegaanka golaha deegaanka doorashadiisa ma dadka ma soo wada baxayo mase golayaal deegaan dadka leeyihiin oo golayaasha laga socdayna maya dadka soo baxa dadka doorashada isku waqtigay dhacayno isku markaa dhacay baarlamaanka oo dhacayo ay sawada baarlamaanka marka tano xisbigi u kuraas badjo aduq magaalada soo qaba xisbigi kuraastiisa yaraatana waa baxa saas waay nidaamku saas u ahay hadda laakiin nidaamku waa la isku qasay wixii dhamay qaab darra laga dhigay hadda waxaan kula talinahay gobernatoraha dhaqanka socdaba hadda hadaan fiirshay 20 sano dhaqanka socdo 20 sano maxamed siyaad barre kii socdaa socdo laba kala duwan afka waxaan ka leenahay dimuqraadiyo dhaqankana waxa waa dictatoriyo maxaa waaye dimuqraadiyadu waxa waaye in qofkan doorasho oo meesha ku yimaado qofkii la naco meesha oo ka tago nin kale tago hadda degmooyinka dhaqanka ay ku dhaqmaan waa la sacbaa madaxweynaha loo sacbaa soo dhaw jaalo soo dhaw madaxweynaha ugu sacbay madaxweynaha degmadiin madaxweynaha dadku ka dhaxeeya waxba gooni ugu sacbin madaxweynuhu hadduu qaldabo waa u sacbishaa hadda farmaajo la azuu sacbay maanta waa ka tegi meesha lama rabo waxaa rabaa adigu go'aano ugu sacbin waxba ugu sacbin dalka horumarkiisa la ka fikira bas waxaa laga rabaa gobernatoraha amniga nabadgelyada inuu ilaalisho shacbigana la tira koob kow midda kale municipiyaduna plan regulatory leedahay iyadana qurxinta magaalada qurxinteeda jidad u samaynteeda laamiyasiinteeda nadaaleynteeda canshuur awoodinta municipia iskale sindika iskale waxaas laakiin gobernatoru wuxuu leeyahay siyaasadda arrimaha siyaasadda dadweynaha iyo siduu isugu xiri lahay dowladda laakiin jaalasiyaado hadaad bilowdo bilaash waaye qof in loo sacbiyo waa qalab
qof yaan loo sacbin military laftirkiisa waxyaabo badan oo khaldanaan ka arkay aniga aan ka dareem marka military aniga meelkaan ku jira waa tii aan ku yidhaahday militariga saasee markii la kala saacay oo kuwaan xiisaan leydi military noqdeen oo jalaal daa'uud oo watay booliiskan booliis ku haray laba kooxaa soo hartay ma ogtahay oo waardiye faranse la yidhaahdo iyo ilaalada kuwa la yidhaahdo 65 markii la gaaray alla baabaasha iga dhamay waxaa la yidhi ciidan oo dhanba dalka laba lee waay booliis iyo military waxa kaloo ciidana dalka ma ka jiri karo waxaa weheliyo askarta la yidhaha askarkaal jira maxaabiistaasay haayaan shaqo ku malo ayda gale laakiin ciidanka amniga dalka ilaalisho waa labadan booliiska oo arrimaha gudaha ilaalisho iyo militariga xuduudaha ilaalisho saas labadaas ciidan bis waardiye fanansana waa la baabaashay gogladiina waa la baabaashay ama booliis gala ama military gala qof walba waxaad jeceshahay ayna raacdayn qof walba waxaad jeceshahay qaybtaad jeceshahay gal kii seerjita rabana seerjita u aaday kii booliis rabana booliiska u aaday saas ku dhammaad hadda waxaa la sameeyay maxamed siyaad barre wuxuu samaystay ciidan la yidhaahdo laba ciidan kuwo la yidhaahdo nabad sugid iyo kuwo la yidhaahdo hangash hal farmaajo asagana wuxuu samaystay gorgor kuwo la yidhaahdo kuwo la yidhaahdo duufaan kuwo la yidhaahdo geedka haram cas iyo nabad sugidii miisaan wale waxaasoo dhan madaxweynaha jiro oo isku ilaalaaya waay lama rabo booliis iyo militariga joogo dalka ilaalaaya militariga madaxweynaha ayaa ilaalin jira booliis iyo military nima la yidhaahdo aadan cabdullahi cabsi baan ilaalin jira iyo cabdirashiid oo military ah oo madaxtooyada joogi jira marka anigu qaabkaasaan aan ku tali lahay haddii laga yeela talada odayaan ahay soo joogay waaye soo joogay waxaan ku tali lahay saas in la yeelo oo askarahan faalsada oo dhan laga baxsho meesha oo booliis iyo military loo kala jabsho kii booliis rabana booliis laga dhigo kii military laga dhigo waxaan eegaynaa markaan magaalada muqdisho way joog horaa tahay oo magaalada in badan soo joogay waa saas magaalada xaalkeeda maalinkaas soo ahaa deegaameynteeda soo xeeday xaafaduhu say kala ahayn degmooyinka baaxadoodu say kala ahayn maanta magaalada waa ballaaratay aan kuu sheego waa mahadsan tahay magaalada muqdisho markii duq magaalo soomaaliya la abuurayay oo ugu horeeyey nin la dhihi jiray sheekh jamaal aasindika laga dhigay 1954 magaalada muqdisho intay la ekeed markaan kuu sheego degmada wardhigley inta soo jirtay degmada wardhigley waxay ku ekeed masaajidka cabdallaahi cawareer meesha la yiraahdo kasoo bilow iyo ajibkan siinay jidkaan maaragtay wadnaha la yiraahdo dowr u ahaa buulo dhadhalaa ku tiir xertaan sheekh maxamed faarax shaadan dheer hadda loo yaqaana laakiin xerta sheekh maxamed faarax iska lahay 1954 meesha soo degay markuu soo degayay baadiye ahayd magaalada dhinacan saasiga ahayd masaajidka cabdillaahi cawareer meel guri saan ugu aadanayo guriga aadan cadeen xagga ka soo jirto sarku aala jirto habar la dhihi jiray xalimo goox gurigeedu ku yeel meesha sarku leed gees u jirta magaalada xagga waxa ka jiro duur u ahay soo soco buurkaro wala markaad joogto wixii halkaas ka jiro afisyo buurkaro xamarjijab loo yaqaano qaybta buurkaro dhinacaas xaggo xamarjijab loo yaqaano dekada iyo meelahaas waa zona military aheyd dhulkaasu zona military aheyd askar bisaa deganeed kaalshira mugi laga kadoomo kaalshira laga tago ilaa iskoola bulsiya la gaaro waa zona military aheyd dhul degmo ma ahayn dhul askar iyo xawiyood ay ahayd hadda dekada meeshay ku dhisan tahay xero la dhihi jiray raad oo qolada ministaha ay lahaayeen ku tiil oo kadib inta la rabay waxaa loo rabay baynila bangala meel la yidhaha hadda laga dhigay ayaga raag bangala laga dhigay marka kow buulo eelay buulo la yidhaahdo oo bundada koobaad agteeda ku oodeed oo magaalada ka fogeed iyada ka bilow ilaa ambulatory ceelgaab inta ka dhaxaydan dhul bannaan iska ahay oo deexa
oo geesariyood ka baxo dhulka iyada wixii ka dambeeyana ilaa iridda afisyoonana bannaan ilaa buurkan weyn oo la yidhaahdo burdheere la yidhaahdo dhex geesariyood ka baxo waay anaa kasoo guran jira 54 cidlo ahay dhulkaas waxba muna xagga soo aafadani cabdulcasiis waxay ku ekeed iyadana derbiga dekada markaad ka gudubto gidaarka ku oodan wax yar cabaar haddaad socoto adiga meesha kale looga leexdo kawaanka malayga lasinaadkeeda wixii xaggaas ka jiro cidlay ahayd wixii halkaas ka jiro baar liido meesha ku aadan yahay wixii ku aadan oo korkaan uga aadan oo dhan buur bacaad oo cidlaha u ahay ilaa hoos soo dego isbitaalka laasareeto keligiisaa meesha ku yiri isbitaalka laasareeto gadaashiisa wax bini aadmi oo ku noolaay ma jiro dhulkaas isbitaalka laasareeto waa shaqeeyaha isbitaalka laasareeto marka hadda la kala carruur shaqada baaba'da mogiye weligiis waa shaqeeyaha isbitaalka talyaaniga horaa dhisay 3 isbitaala xamarba ku tilba laasareeto iyo oo la dhihi jiray forlanini iyo martini iyo isbitaal la dhihi jiray ravo oo ku yaala meeshaan hadda taalada agteeda taalada dhinacanka soo jira isbitaal ravo la dhihi jiray 3 isbitaala xamar ku tiil digfeer kuwa gadaal laga dhiso oo ahay 60 la dhisay oo waxaa dhistay markaata comuna eurobeyo aad dhiseen 3 sano ku shaqaysanayeen si 63 ay iska wareejiyeen dawladda ku wareejiyeen 63 wixii ka horeeyay lacag lagu seexanayo isbitaalka digfeer laakiin laadigaalisay dhulkaan maaragtay 56 degmadan waa beri jidadkaana inta la jabshay jidkan la yiraahdo maaragtay beerta nabadda jidka inta ka maro isbitaal martini galay waa doodi jabriila la yiraahdo iyo jidka kale masaajidka cabdulqaadir iyo meesha la yiraahdo guriga haweenka soo kala dhaxbaro iyo jidka la yiraahdo yobsan jidka la yiraahdo via jito intaasoo jid oo inta jabshay sheekh jamaal jabshaa loo yaqaan markaas kunta ilaahdi abyaala waxay ku sharbeen 2 jamaal hal waa jihaad halna jikoodhinkoo jabshaa jamaalka jihaadka waxa waaye jamaal cabdinaasir dagaal la yiraahdo dagaalkii Port Said abriga socday konton 6 oo ingiriiska iyo waxa diray ninka la yiraahdo Masar waxay ku direen Canal Suez waa la qodob ogtaa Canal Suez meeshaas isku dhagan waa dhulkan la yiraahdo Sinai haddaad Masar tagtood ku socoto Aasiya adoo lugayahay badaa hadda laga dhigay oo badda Mediterranean iyo badda la yiraahdo Mar Rosso la isku furay baddaas iyo badda Mediterranean la isku furay asa Canal Suez meesha 2 kanaal geeskaasta Port Suez iyo Port Said la kala yiraahdo 2 kanaal 2 irtood lagu soo kala galo marka Canal Suez ingiriiska iyo qodeen waa ka canshuurta ay qaadan jireen marka dambe masaarida waxay nooga tagareen naga leh waa la diray marka dagaal xumo dhacmar marka loo dhijir Musdaniyo ay laga gubay ingiriiska markaas dagaalkii bay joogsaday ingiriisna uga baxay dhulkood ka soo marka waxaas waa taariikh fog marka taariikhdeena Soomaaliya markaan ku soo laaban jidadkaas uu sameeyay waa dhulkan cabirka oo cabiray waa beri saasaa kor loogu fuulay buurkaa looga cabirkiyaa hodan ku dhacay hodanta horo iyo hulwadaag dambeeyay hulwadaag maaragtay dambeeyay oo hadda subloogood haddaad isku fiirido kaasna kana 62 ku qoran qaar ah kaasna waxaa ku qoran konton iyo 60 alla qoran konton iyo 7 saasa sanad kasta bixintu waa socotay markay kaas markuu sheekh jamaal markay u dhamaatay sheekh jamaal waxa waayay konton iyo 4 ilaa 69 waxa qabtay nala dhigi jiray Axmed Muddo Xuseen aduq magaalada qabtay meeshuu ka sii wada asagan Axmed Muddo Xuseen baa mudday nala dhigi jiray Kingdid Axmed Yuusuf ala soo dhaxgashay dawladda soo dhaxgelisay lama dooran waa uu dhax magacaabay iligaas duqa magaalada sida hadda uu ahaa oo wax qaybsi awood qaybsi qabiil ma lagu qaaday may masaqaf kasto oo Soomaaliya duqa magaalada may duqa magaalada Muqdisho dadka xamar deganaa lahaa magaalada Muqdisho la yiraahdo
dadka deegaankaa lahay marka usoo laabano deegaamintii magaaladan muqdisho way ballaaratay degmooyinkan goormay samaysmeen hadda waxaa ka hadlaysaa meelo badan oo markaas maado ah goormay samaysmeen sidee ku degmooyinka xooggoodu waxay samaysmeen 70-kii gacaanka markuu dhashay markii degmadan la yidhaha yaaqshiid xamar jadiid oo dhan dhulkan yidhaah kaaraan dhulka la yidhaah horiwaay dhulka la yidhaah madiina dhulka la yidhaah wadajir dadkiinli dhulka la yidhaah waxaasoo dhan waxay samaysteen bacdal siyaad hodan waxaa ka horreeyey siyaad waxaa ka horreeyey waa beri oo samaysantay hor 7 degma u horreyday 7daas degmana ma 5 mase 2 5 meeshay ka dhasheen labana waa la abuuro inta la soo qaadaa la dejiyey bilmasal sida boondheere oo kale boondheere waxaa laga soo qaaday jidkan la yidhaahdo mataqaanaa jidkan ka baxo bangiga nationaal soomala ka baxo oo exposta galay maaragta bangiga ganacsiga maaragta waa weyn masaajidka 4 rukun 4 rukun jiddan ma maro oo badda galay bravo jid kale asaga 4 rukun inta ka bilowdo saas aadayo geedka x degada hore aaday labadaas jid dadka deganay waa isku deganay Shangaan iyo Xamrooyin isku dareed labada waa isku dareed ba luqluqaasa Xamrooyin luqluqta maarad Shangaan luqluqaasay wada ahayd jidkaas inta la jabshay oo jidkaana la jabshay dadka laga jabshay degmadan boondheer lagu asaas looga dhigay boondheer saasi ku timid asoo hore Cabdulcasiis baashan Shangaani eegedka Xamrooyin baashan shibis bilaaja carab la dhihi jira carabta deganeed xamar iyo Soomaalida adib isku qabeen isdili jireen ma jiro deganaa ceelgaab deganaa waxa la wixii carab ahaayo dhan inta la soo raray 1947 abeeshan soo dejiyay bilaaja carab leeyahay bilaaja carab waa inoo eraga bilaaja waa xaafada carabta waa bilaaja carab le ba ay u bedelaan markii Soomaalida hintaageeda bilaaja carab la dhihi jira meeshaas soo degeen labadaas laakiin shanta kale meeshay ka dhasheen wardigley xaafad meel laga soo jabshay ma ahayn dad waqooyi ka yimid oo iska degayaa meesha ka dhashay Xamrooyin sidoo kale Shangaani sidoo kale Xamar Jajab sidoo kale Cabdulcasiis sidoo kale shantaas degmo meeshay ka dhasheen labadan degmana waxa waaye kontonki inta samaysteen baad kontonki inta jirtay labadan degmo la yiraahdo shibis iyo boondheere labadan waa la abuuro dad la soo jib meel la soo jibto la dejiyo waay ya dhigi helwaay koodi maya helwaay koodi waa la cabir helwaay waxa la jabsho suuq boondheera inta la jabshay ay waxa la geeyay marka hore shinima waxa taa ka agteeda laga dhigay 3 bilood markay meesha deganaayeen waa laga qaaday Siina ayaa la geeyay Siina ayaa la dejiyay 72 haddana inta la qaada qayb la qaada hulway la dejiyay hulway saasay ku noqotay suuqaas aldi laakiin dadka waa loo cabir dad inta la soo jabshay la dejiyay ma jiro waa loo cabir marka suuqyada kale oo dhan sida bal masal hodan iyo waaberi iyo ninkaliya baashan hawadaag saddexdaas ka caanka ka horeeyeen waxa abuuray saddexdaas dawladii shibilka ahay abuur kacaanku wuxuu abuuray dhulkan la yiraahdo Xamar Jadiid meeshaan hadda aan ku fadhino boondheer hadda ka tirsan waan nasiib wado wixii ka soo hooseeyay qabuur lahayd Afrika qabri bisoo ahay dad mudagayn kadib tartiib loo degol laadin wala wada degay laadin degmiyeed oo dadgiya laakiin laadin way goorday qabuur lahayd ko dhulkan hadda saan halahan marka hadda ka soo bilow adiga degmada ka soo bilow wixii inta ka soo jiro guriyo jiray waa lagu fujiyay waa jireen oo meel lagi laakiin intii xaggan ka soo jirto dhan kacanka abuuray
xamar jadiid oo dhanka cankaaba jidkan wadnaha wixii ka koreeyo kacankaa abuuray jidkan wadnaha wixii ka koreeyo kacan kor ma jiro wixii ka hooseeya u jira ka hoose waxaa sooco buulaxoogay markaa tagto buulaxoogay tartiibta wadaa laakiin buulaxoogay wixii ka hooseeya meel la dhihi jiray xaafid loo meeshaan iskoolkan la yidhahdo polytechnico iskoolka la yidhahdo polytechnico oo ku yaalo lambar 4 airport galaay xaafid la dhihi jiray cada juuje ahayd xaafiddaas cada juuje inta la jabshay aa dadka madiina lagu aasaasa uga madiina lagu aasaasa dharkeynleyna cabirka dhulka la cabiray waa la cabiray mugta dhulka dadkaana la soo jibjo meeshaa la dejiyey dhulka cabirka la cabiray qolo walbaba meeshaasaa dadku degdegeen saasay ku koreen sida hadda balmathal kaxdoo kale say u dhisantay iyo galmudug say u dhisantay iyo saas camal isugu wada dhisanteen waxaas bacdilsiyaad ay dhismeen mogtaa kuwaasna bacdilsiyaad waaye marka dowladda siyaad kadib ay dhisaano kaxda iyo galmudug iyo maxaan ku leedahay tareedice iyo kuwaan la sheegaa goboleeda dad meel la dejiyo oo dib looga looga dhigi waayo magaalada sideeda saas ku dhisan qaaskaasi ku dhisantay